بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad ku soo dhawaataan channelkeena nagu magac darnay ogaanshaha haddaba subscribe like comment share waa xaqiina way naga codsi channelkan ayaad uga bagan doontaan waxyaabo ku xiiso geliya haddaba naga guddoon barnaamijyada aan idiin soo tabin doono barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay dadka caalamka ugu dhaadheer qaybteennii ugu horeysay qaybo kale ayuu leeyahay la socod wacan waxay noo soo diyaariyay anigoo ah Aways Xuseen Cusmaan waxaan guda galaynaa barnaamijkeeni haddaba waxaan ku bilaabi doonaa ninkan u dhashay dalka Turkiga magaciisana uu yahay Sultan Koşun ninkan ayaa ah ninka dadka ugu dhaadheer caalamka ninkan ayaa mitirkiisii 8 feet 3 in 2.51 centimeter ninkan ayaa ah dadka caalamka ugu dhaadheer wuxuuna u dhashay dalkaasi Turkiga waxaana ka heli karaysaa faahfaahinta wixii dheer Google-ka adigoo ku qoraya magaciisa haddii aan raacino qofka xiga ninkan ayaa u dhashay dalkaasi Morocco magaciisana uu yahay Ibrahim Tokulla ninkan ayaa ah kaalinta labaadna ka galay caalamka dadka ugu dhaadheer isagoo ah haysta rikoorka 8 feet 1 in 2.46 centimeter ninkan ayaa haysta rikoorka caalamka dadka ugu dhaadheer haddii aad ugu baahan tahay faahfaahinta wixii dheer waxaad ka heli karaysaa Google-ka adigoona ku qoraya magaciisa haddii aan u gudubno qofka saddexaad ee dadka caalamka ugu dhaadheer ninkan ayaa magaciisu uu yahay Murtaza Maharsen una dhashay dalkaasi Iran ninkan ayaa rikoorka dadka caalamka ugu dhaadheer haysta 8 feet 1 in 2.46 centimeter ninkan ayaa ah dadka caalamka ugu dhaadheer haddii aad uga baahan tahay faahfaahin intaa wixii dheer waxaad ka heli karaysaa Google-ka kuna qor magaciisa oo buuxa haddii aan u gudubno qofka afraad ee caalamka dadka ugu dhaadheer magaciisuna uu yahay Suleyman Ali Nashnusha una dhashay dalkaasi Liibiya uuna haysto rikoorka caalamka 8 feet in 2.45 centimeter ninkan ayaa ah dadka caalamka ugu dhaadheer una dhashay dalkaasi Liibiya haddii aad uga baahan tahay faahfaahin intaa wixii dheer waxaad ka heli karaysaa Google-ka adigoo ku qoraya magaciisa buuxa haddaba aan u gudubno qofka shanaad ee ugu dambeeya ee kaalinta shanaadna kaga jira dadka caalamka ugu dhaadheer magaciisuna yahay Asad Maxamed Jesus una dhashay dalkaasi Egypt ama Masar saa u taqaana ninkan ayaa rikoorka caalamka dadka ugu dhaadheer haysta 7 feet 10 in 2.40 centimeter ninkan ayaa ah dadka caalamka ugu dhaadheer haddii aad faahfaahin intaa wixii dheer aad uga baahan tahay waxaad ka heli karaysaa Google-ka adigoona ku qoraya magaciisa oo buuxa waxaan raaligelin niga bixinayaa maadaama aan niga yiray Google-ka ka raadiya waayo xaqiiqada sidaad u ogaataan ayaan niga yiray ama aan niga dhahay in aad ka raadisaan barta Google-ka xaqiiqada ee dadka caalamka ugu dhaadheer iyo adigoona ku qoraya magaciisa haddaba waxaan naga codsiyaa in aad inoo saartaan like wuxuu yahay waa dhiirigelinteena commentina ka bixi waxyaabaha idin cajibin in aan ka beddelno barnaamijka sidoo kale subscribe inoo saar si aad uga hesho fiidiyoyaal kale aad ku xiiso geliya haddaba waxaan leenahay guusha waa xaggina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh